xafladan oo lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab isla markaasna lagu sagootinayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Tarsan ayaa waxa lagu qabtay magaalada Hague ee wadanka Netherlands. xafladan ayaa waxa soo qaban qaabisay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Holland ayadoona si weyn ay ugu rayaaqeen jaaliyada magacaabistii madaxweynaha Soomaaliya oo u magacaabay gobolka Banaadir General Mungaab oo ay sheegeen in wax badan lagu xasuusto isla markaasna wax badan uu ka qabtay arrimaha amniga gaar ahaan xilligii uu madaxda ka ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida. dadkii munaasabada ka soo qayb galay isugu jiro aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo waliba waxgarad ayaa waxa ay si weyn uga hadleen waxqabadka General Mungaab ayagoona sheegay inay si aad ugu faraxsan yihiin in General Mungaab markaasi uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaana ay u riyaaqeen inuu wax badan ka qaban doono ayagoo soo qaatay hadallo uu dhawaan General Mungaab jeediyay kuwaas oo ahaa inuu wax badan ka qaban doono dhinaca cadaaladda iyo waliba horumar badan uu ka sameyn doono dhinaca amniga. khudbadii jirso caawa mowduuc oo ku saabsanay taageeridda kuwayrnatooraha iyo duqa magaalaha cusub in lagu taageero kii ka horreeyana lagu sii saguutiyo. aniga mowduucaygu marka maanta wuxuu noqonayaa inan cadaaladda iyo shaqada ay qabanayaan nafteedu aan kala tala baxsho. waa lala taliyaa dowladaha oo ra'yi waa la siiyaahe waa rabay laakiin hadda waxaan ku kuusayaa warkayga inaan duceyno oon u duceyno in alla wax la qabto. waa dad caalimiin oo anugu kalsoonahay mas-uuliyadda loo dhibay inay qaadi doonaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan ee maanta halkaan ka socota iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhammaan aan kala socnayn ee ka soo qayb gashay rag iyo haweenba sida ay yihiin. waxaan halkaan ku soo dhaweynaynaa waa xaflad laba ujeedo leh. labada ujeedo waxa waaye gudoomiyihii gobolka Banaadir ee hore Bastar Tarsan sagootidiisii iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub General Mungaab. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga soo jeediyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Netherlands ama Holland salaan iyo hambalyo aan idinkaga shido wadanka aan ka imid Sweden. waxaan rabaa inay iga guddoontaan marka hore. marka labaad waxaan rabaa inaan idinla wadaago hambalyada aad halkan ka diraysaan anigoo ku hadlayo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden guud ahaan gaar ahaan magaalada aan ka imid ee Katrineholm Holland. runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan xaflad aad u qurux badan ee halkan howlkan weyn ka dhacayso maanta inaan goobjoog u noqdo marqaatina aan ka noqdo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Netherlands sida diiran ay u sagootinayaan duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan una soo dhaweynayaan gudoomiyahooda cusub ee duqa magaalada Xasan Maxamed General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. runtii qof walba oo xil loo dhiibo wuxuu qabtaa hawsha oo aan ula dardaarmayaa General Mungaab inuu meeshiisa ka sii wado. waana ku soo dhaweynaynaa waana u tahliyeynaynaa waxaanse tahliyadda ka daran oo aan isku soo jeedaha waxa waayo ducadaas waxay tahay in ilaahay la garab galo ballamadii uu qaaday. si sharaf leh qiimo leh ayaan ku soo dhaweynayaa magacaabidda uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed
magacaabidda generaalka wuu asiibay baan filahayaa xilkuna waa dimuqraadi waa wareegahayaa waxaan aad iyo aad raalli ugu nahay haddaan nahay shacabka reer Holland raalli baan ka nahay go'aankaas iyo magacaabitaanka duqa magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada xafladda lagu taageerayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Mungaab waxaan u mahadinaynaa dadkii ka soo qayb galay waxaan halkan taageero iyo hiil iyo hoobale ugu muujinayaa gudoomiyaha cusub oo dhawaan loogu magacaabay gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Generaal Xasan Maxamed Xuseen Mungaab kolay hawshan ku taal ma aha howl yar waxaan Ilaahay kaaga rajaynayaa inuu Ilaahay ugu gudub galo intii xafladda ay socotay waxaa qadka telefoonka kaga soo qayb galay xafladda ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade asagoona ugu mahad celiyay dadka Soomaaliyeed ee Holland degan sida ay mar walba u garab taagan yihiin nidaam kasta oo laga dhiso wadanka Soomaaliya isla markaasna ay ugu faraxsan yihiin in ay soo dhaweeyaan qof kasta oo ummadda wax u qaban kara Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro telefishinka qaranka magaalada Hague wadanka Netherlands